Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome back. Mar kale soo dhawaada. Waa casharadii taxanaha ahaa ee inoo soo socday. Casharka maantana waxa weeye lesson 8. Casharka sideedaad lesson 8. Casharka sideedaad maanta wuxuu ku saabsan yahay articles. Macna ahaan ereyga article waxa uu leeyahay macnayaal badan. Mid ka mida waxa weeye jaraa'idada waxa ay qoraan ama waxa loo yaqaano maqaal. Waxaa la dhihi karaa article maqaal uu jaraa'id qoray ama articles maqaalo. Laakiin maanta sida halkani uu ugu jiro oo aanu uga hadli doono macnaha taas ma aha. Halkan waxa uu ugu jiraa oo uu macnihiisa yahay waxaa laga wadaa saddexdani eray an iyo the. Saddexdani eray ayaa la isku yidhaahdaa marka laga hadlayo grammarka ama naxwaha ingiriiska articles ayaa la isku yidhaahdaa. Waana saddexda eray ee ugu xiisaha badan uguna wareerka badan. Haddii aad fahamto saddexdani eray sida loo isticmaalo naxwo ahaan ama grammar ahaan, waxaan dhihi karaa ingiriiskaada ama luuqadda ingiriiskaada aad ayay u fiicnaan doontaa. Wax badan oo grammarka ka mid ana waad fahamtay haddii aad saddexdani si fiican u fahamto. Macno gooni ah oo erayadan lagu macnayn karo ma jiro. Oo the haddii la dhaho macno iyada gooni uma laha. Laakiin waxa weeye waxaa la isku yidhaahdaa functional words. Waa erayo oo shaqo qabta oo luuqadda in badan fahamkeeda ka caawiya dadka, laakiin iyaga aan macno gooni a lahayn. Run ahaantii waxaa la yidhaahdaa ereygan the waa ereyga ugu badan ee la adeegsado luuqadda ingiriiska. Ereyada la adeegsado oo dhan marka la xisaabiyey erey walba inta la adeegsado the ayaa ugu badan. Waxaa la yidhaahdaa 100 erey qofka markuu ku hadlo 5 erey oo ka mid ah waa the. A iyo an waxaa la isku yidhaahdaa indefinite articles, waana ereyada la hordhigo magaca keli ah oo aan la garanaynin. Tusaale ahaan haddii aad ka hadlayso wax guud oo qofka aad la hadlayso uusan kula garanaynin, waxaad isticmaalaysaa a ama an midkood. Haddii aad shay specific ah ama gooni ah ama uu kula yaqaano qofka aad la hadlaysa aad ka hadlaysana waxaad adeegsanaysaa the. Marka a iyo an isku si ayaa loo adeegsadaa, laakiin a waxay raacdaa ereyada ku bilowda waxa loo yaqaano consonants. Ereyada ku bilowda waxa loo yaqaano consonants. Wax kale ma aha. Shibanayaasha ereyada ku bilowda hortooda ayaa la dhigaa. Ingiriiskana waxa uu leeyahay 21 shibane. Waxaana ka mid ah b, c, d, f ilaa iyo waxaad wadaysaa z. Laakiin shanta shaqal waxaa loo isticmaalaa an hortooda. Shanta shaqalna waxay kala yihiin a, e, i, o, u. Shantan shaqalna waxaa lagu xasuustaa Axmed eedadiis isha ooda u geliyey. Marka haddii uu noun waa magac, magacaas oo uu leeyahay qof person, thing shay, oo place ama meel, oona uu yahay single ama singular oo aan la garanaynin oo guud ahaan looga hadlayo. Haddii uu ku bilowdo 21ka shibane midkoodna waxaa la hordhigayaa a.
when you are talking about marka aad ka hadlayso one thing hal shay in general oo guud use isticmaal an isticmaal or a ama a isticmaal tusaale ahaan markaad leedahay maroodi hal maroodi waxaad dhahaysaa an elephant marka aad dhahayso book waxaad leedahay a book marka book gooni ama aha waa un book hal book marka kaba soo qaad hadday halkaasi buugaag badan yaalaan oo aad doonaysa hal book waxaad dhihi kartaa give me a book sii marka midka lagu siiyo danka ma lihid midku doona ayuu noqon karaa a book ayaad leedahay marka haddii uu hal book yahay oo hal book oo gooni ah aad doonayso waxaad leedahay the bookga marka an ama an iyo a waa guud tusaale kale ayaan idin siinayaa haddii aad timaado dugsi ama iskuul oo iskuulkana ay joogaan macallimiin badan oo aad doonayso hal macallin oo keliya inaad la hadasho waxaad leedahay I want to see a teacher baad ka hormarinaysaa a teacher maadaama t uu ku bilowdo teacher macallin oo uu tina ay tahay shibane ayaad ka hormarinaysaa marka waana dhawaqa haddii uu yahay shibane erayo waxaa jira iyaga oo shibane ku bilowda haddana dhawaaqooda uu shaqal yahay tusaale ahaan hour saacad hta way aamusan tahay markaasi hour ayay noqonaysaa saacad marka haddii aad dhihi rabto hal saac an ayaad ka hormarinaysaa inkasta oo h ay tahay shibane haddana waxaad ka hormarinaysaa an oo ahayd midii kuwa shaqalka ku bilowda laga hormarinayay tusaale kale honest daacadnimada haddii aad ka hadlayso hta waa silent oo way aamusan tahay haddii aad leedahay hal nin oo daacada waxaad ka hormarinaysaa an waxaad leedahay an honest man weli waxaan ku guda jirnaa indefinite articles ama articoladii ka hadlayay waxa aan la aqoonin ama aan cayinayn use isticmaal before ka hor nouns magacyada starting with oo ku bilaabanaya consonant sound codka oo shibanaha shanqadha ama codka oo shibanaha ee magacyada ku bilaabanaya isticmaal hortooda for example tusaale ahaan a book a car gaari ama baabuur a dog use isticmaal before ka hor nouns magacyada starting with oo ku bilaabanaya a consonant sound shanqadha ama codka oo shibanaha for example tusaale ahaan a book a car gaari a dog use isticmaal an before ka hor nouns magacyada starting with ku bilaabanaya a vowel sound ereyada ku bilaabanaya vowel ama vowel sound u isticmaal an hortooda for example tusaale ahaan an egg ukun an elephant maroodi an umbrella dallad use isticmaal an before nouns magacyada hortooda starting with oo ku bilaabanaya a vowel shaqal or ama a vowel sound ama shanqadha oo shaqalka for example tusaale ahaan an egg ukun an elephant maroodi an umbrella dallad definite article waa the ama waa articleka oo ka hadla ama noo sheega shay cayiman ama shay la isla yaqaano
when you are talking about marka aad ka hadlayso wax ku saabsan one thing hal shay in particular oo gooni ah use isticmaal the when you are talking about marka aad ka hadlayso wax ku saabsan one thing hal shay in particular oo gooni ah ama khaas ah use isticmaal the oo isticmaal tusaalihii haddaaya aan soo qaaday ee macallimiinta dugsiga ama iskuulka jooga haddii uu dugsiga hal macallin joogo ama iskuulka hal macallin uu joogo oo aad doonaysa inaad macallinkan la hadasho waxaad isticmaalaysaa the waxaad leedahay I want to talk to the teacher ama waxaad dhahaysaa I want to see the teacher marka the waxa ay sheegaysaa wax cayiman ama wax la isla yaqaan tusaale kale haddii aad rabto dayaxa inaad ka hadasho waxaad leedahay the moon dayaxa sababtoo ah dunidan hal dayax kaliya ayaa jira qof walbana wuu yaqaanaa waxa aad ka hadlayso the moon ayaad leedahay haddii aad qoraxda ka hadlayso the sun ayaad leedahay the sun qoraxda waa la isla wada yaqaanaa sidoo kale shay aan lagula aqoonin marka koobaad ee aad ka hadasho marka labaad the ayaad isticmaalaysaa sababtoo ah markii hore jimladii hore ayaad shaygii kusoo sheegtay jumladda labaad shaygaasi marka aad magaciisa soo celinayso the ayaad ka hormarinaysaa tusaale ahaan I see a car waxaan arkayaa gaadhi the car is red gaadhiga wuu gaduudan yahay I waxaan arkaa a car gaadhi ayaan arkaa marka labaad oo gaadhiga magaciisa aad soo celinayso the ayaad ka hormarinaysaa the car gaadhigu is waa red guduud marka shay la isla yaqaano aad ka hadlayso the ayaad ka hormarinaysaa marka aad shay ka hadasho aan la isla aqooninna marka labaad uu shaygaasi hadalkiisa soo noqdo the ayaad ka hormarinaysaa tusaale ahaan the capital city of Somalia is Mogadishu the capital caasimada of Somalia ee waddanka Soomaaliya is waxa weeye Mogadishu muqdisho I bought waxaan soo iibsaday the shaatigii I always wanted had iyo jeer aan rabi jiray shaatigii aan weligay rabay ayaan soo iibsaday waa hal shaati oo gooni ah I bought waxaan soo iibsaday the shaatigii I always wanted ee weligay ama had iyo jeer aan rabay he bought wuxuu soo iibsaday the red car gaadhigii gaduudnaa marka jumladani waxay caddaynaysaa qofka lala hadlayo inuu yaqaano gaadhiga gaduudnaa ama wuxuu noqon karaa midaad horey usoo aragtay ood usoo aragteen oo aad isla ogeydeen the red car marka aad leedahay qofka aad u sheegayso wuu garanayaa gaadhiga aad ku jeedo marka haddii qofkaasi uusan gaadhiga weligiis arkin uusan garanaynin waxaad dhihi lahayd he bought wuxuu soo gatay a red car gaadhi guduudan buu soo gatay laakiin maadaama qofka aad u sheegayso uu yaqaano gaadhiga laga hadlayo the ayaad isticmaalaysaa he bought wuxuu soo iibsaday the red car gaadhigii gaduudnaa ayuu soo iibsaday a little boy wiil yar and a man iyo nin markii laga hormariyo little boygaas wiilkaasi yar mid kasta ayuu noqon karaa mid qofka loo sheegayo uu yaqaano maaha a manna nin kasta ayuu noqon karaa nin gooni ah oo qofka loo sheegayo uu yaqaano maaha a little boy wiil yar and a man iyo nin waa walking ayaa waxay socdeen in the market suuqa dhexdiisa daas waxay tilmaamaysaa suuqa laga hadlayo qofka loo sheegayo inuu yaqaano in the market suuqa ayay dhex socdeen the little boy wiilkii yaraa u fiirso markii koobaad ee wiilka yar laga hadlay ayaa la hordhigay markii labaad ee magaciisa la soo celiyey the ayaa laga hormariyey sababtoo ah wiilkii jumladda hore lagaga soo hadlay in laga hadlayo hadda waad fahmaysaa the little boy wiilka yari wuxuu arkay a pair of shoes laba kabood pair waa wax laba isula socda
a pair of shoes laba kabood ayuu arkay in a shop dukaan buu ku arkay a pair of shoeskan eedaas waxay tilmaamaysaa kabahaas inay noqon karaan kaba kasta kuwa aan naqaano ma aha a shop taas dukaankaasna waxay sheegaysaa a'daas in uu noqon karo dukaan kasta dukaan aan naqaano ma aha he asked wuxuu weydiiyey the man ninkii u fiirso markii koowaadee ninka aanu soo hadal qaadaynay a man ayaanu isticmaalnay markan labaadna the man ayaanu isticmaalaynaa marka da'daas waxay noo sheegaysaa ninkii horey loo soo magacaaday in laga hadlayo the man ninka if he could haddii uu awoodo buy inuu u iibiyo the shoes kabaha for him isaga halkana u fiirso the shoes ayaa hadda la isticmaalay markii horena waxaa la isticmaalay a ayaa laga hormariyay haddana the ayaa laga hormariyay a little boy wiil yar and a man iyo nin waa walking ayaa socday in the market suuqa dhexdiisa the man aan idhaahdo the little boy wiilka yar so wuxuu arkay a pair of shoes laba kabood in a shop oo dukaan yaala he asked wuxuu weydiiyey the man ninkii if he could haddii uu awoodo buy inuu u iibiyo the shoes kabaha for him isaga halkan waxaan idinku siin doonaa tusaalayaal oo idiin sii faahfaahin doona ama idiin sii caddayn doona sida uu macnaha isu bedelayo marka magaca la hordhigo a ama an iyo marka la hordhigo the af soomaali ahaan sidanuu macnaha isu bedelaya a boy marka la yidhaahdo wiil ayay noqonaysaa macnaheeda ama waxay noqon kartaa hal wiil a boy wiil ama hal wiil the marka laga hormariyana u fiirso the boy wiilka ayay noqonaysaa wiilka marka ka'daas ayaa da'dii booskeedii gelaysaa marka the boy wiilka marka ingiriiska waxyaabaha uu ku fudud yahay in la barto waxa weeye ka'daas hadda wiilka ugu dambaysa af soomaali ahaan way isbedbedeshaa oo shay kasta marka laga hadlayo kuwaa ta qaata kuwaa ga qaata kuwaa way isbedbedeshaa laakiin ingiriiska the umbaa laga hormarinayaa isma bedbedelayso the boy wiilka a girl gabadh ama hal gabadh the girl gabadha hadda fiirid af soomaali ahaan a ayaa laga dambaysiiyey marka the girl gabadha ayay noqonaysaa an elephant maroodi ama hal maroodi the elephant maroodiga a house guri ama hal guri the house guriga a house guri ama hal guri the house guriga cashirkii maanta halkaas haynoo joogo inta aynu ku kulmi doono cashir midkan oo kale ah wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatu